بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج عصب ولا مقع بحي دعوة السادعون بالحق برنامج كاسو جماعة أي كسو قدبين دونتو دعوة دي تضبطي سنة إلى صور عفي إذن لو ذاك دونا بشهر رمضان بركيسن لبدي أبريل لبكون يتضبي طوانكي baraha bulshada waxaa ka soo baxay jamaaco cusub oo la magac baxday jamaacatu saadicuuna bilxaq waxay soo saareen bayaanaad iyo xalaqaad ay ku sharxayaan dacwadooda jamaacadu waxay sheegtay oo cadeysay inay yihiin jamaaco ka mid ah dadka muslimiinta ah halkan waxaan ugu soo gudbinaynaa ummadaha adduunka oo dhan baaqeennii koobaad kaas oo aan ugu cadaynayno in annagu aan nahay جماعة كمدة مسلمين. نعلن الجميع أننا جماعة من المسلمين. جماعة ذا سو آد أجمركتي كنا والوشي وحا أي أركيسو أما أي كمغليسو هريرها أدونك. قار أهان عالم كان نوه هريريسان والله يقانا دونيدا مسلمك. أفرتن سنو أي أكور قليين oo ay fiirinayeen xaaladda ummadan ay ku nooshahay xaaladaas oo ah xaalad aad u liidata markii laga fiiriyo dhanka akhlaaqda dhanka maaragtay maxaa la yiraahdaa iskhilaafka dhexdooda ah sida maaragtay maxaa la yiraahdaa faqriga ay ku nool yihiin iyo waliba dib u dhac faraha badan oo ku jira iyo sida ay isaga daba raacayaan cid walba oo iska dhawaaqda oo ku sii kordhinaysa dhibka ay ku jiraan iyo wax ka sii daran ku sii kordhinaya inay iska raacaan afartankii sano oo ugu dambeysay laga soo bilaabo 1973 waxaanu ahayn kuwa u kuurgala si qoto dheerna u daraaseeya xaalka ay ku sugan tahay ummadeenni ummaddaas oo ahayd maalin maalmaha ka mid a mid ku nicmaysan ilaahay diintiisa islaamkoodana ku dhaqangelisa noloshooda qaybaheeda kala duwan maantana aan arkayna ummaddaasi caalamkana waa nala arkaahe in ay ku nooshahay xaalad aad looga naxo iskhilaaf ayada dhexdeeda ah akhlaaqdii oo ka burburtay isdulmin faqiirtinimo dib u dhac dhinac kasta oo nolosheeda saameeya iyo ayada oo iska raacaysa cadowgeedii oo ugu sii baaqaya inay ku sii socoto jidkii markii horeba ay ku hoogtay jamaacada waxay kale sheegtay inay 40 sano ay yaqiinsadeen inay dadkan dhibka ay ku jiraan ay tahay waxa ay uga bixi karaan inay ilaahoodii u laabtaan ayagoo waliba raalli ah oo u khuduucaya inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u laabtaan ilaahaas ah kii abuuray samaawaadkan iyo dhulkan abuuray ilaaha maarta quwadda la awoodda la suldaan kaligiis leh ilaaha subxaanahu wa tacaala mutaystay kaligii in la caabudo oo laga dambeeyo oo waliba xukunka laga qaato 40 sano waxaa noo sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambeysa ummaddaani caafimaadkeeda inuu ay ku jirto iyada oo u noqoto rabbigeedii raallina ka noqota allaheeda abuuray samaawaadka iyo ardada allahaas oo ah midka caalamkan dhan maamula asagana awoodda keligii iska leh sidaa darteedna xaq u leh inuu maamulo arrimaha khalqiga asaga uu abuurtay xaqna u leh keligiis in ay ka dhigtaan midka u talinaya kuna xukumaya sharcigiisa toosan iyo qaanuunkiisa xigmada badan leh waana midda markay dadku saan noqdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha iyo ambiyadu u soo diri jiray ayagoo dadkooda ku leh ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh sidoo kale waxay dhihi jireen ay dadku u sheegi jireen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu u abuuray sida ilaahay qur-aankiisaba uu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ambiyada intaas ayay la soo bixi jireen jamaacatu saadicuunana bilxaq waxa ay la soo baxday waa dacwadii ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo soo saari jiray marka cibaadadaas inay dadka ugu yeeraan ayaa ambiyada lala soo saari jiray cibaadana waxay leedahay hal macno oo kaliya
oo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo khuduuco laga dambeeyo la isku dhiibo isdhiibid kaamil ah qofkana uu ogolaado ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay uu raaco wixii uu faro wixii uu ka reebana uu ka reebtoomo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xarimo uu iska xarimo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xalaaleeyna uu xalaal ka dhigto waana mid kaliya oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala adoon loogu noqon karo marka waxa way maaragtay in ilaahay subxaanahu wa tacaala kaligi noloshii dhan loo hogaamiyo kaligi laga dambeeyo sida ambiyada hadda aan sheegnay dadka maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay ay ugu yeeri jireen waana cibaadadaas oo ah inay dadku ka baxaan is-adoonsiga dhexdooda ah oo ay u baxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inay kaligi adoon u noqdaan jamaacadu waxay sheegtay inay dadka ula yimaadeen hal dacwo kaliya ah oo ah midii ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala lala soo saari jiray oo hadda aan ka sheekeynaynay oo ah inay dadka ku yiraahdaan sida ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dhaheenba ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru shacaarkoodina kaas ayay ka dhigteen taasina waa midda ilaahay rusushiisoo dhan oo ula soo diray bani aadamka si ay nebi kastaba ummaddiisa uu ugu yidhaahdo ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru war alla caabuda ilaah kale ma lihidiine aayad kalena ilaahay uu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insi wax kale uma abuurin inay i caabudaan maahe cibaadada hal macno ayay leedahay waana in si dhammaystiran liskugu dhiiba oo loo hogaansanaado rabbiga waaxidka ah in ummadda ay allaha u hoggaansantayne waxa astaan u noqon kara in aysan kala kulmin wax kasta oo noloshooda ku saabsan ilaa allahaas xaggiisa maahe oo aysan xalaalaysan wuxuu asiga u xalaalay maahe aysanne xaaraamaynin wuxuu asiga ka xarimay maahe arrintaasne waa arrinta ambiyadoo dhan ay ummadahooda ula yimaadeen si dadka ay ugu soo celiyaan alla cibaadadiisa ayna ka soo saaraan cibaadada dadka hogaamiyeyaashooda ah oo hadba sharci inta u dejiya ku xukuma sharcigooda haddaba waxaan rabnaa inaan 7 sano oo jamaacadu ay sadcigaas iyo bayaanaadkaas ay soo saaraysay kadib 7 sano maxay soo bandhigeen su'aalo inaan isweydiino su'aalahaas waxaa ka mid ah 7 sano jamaacadu maxay soo bandhigtay hadafka ay dacwadan kala hayeen muxuu ahaa tawxiidka maxay uga bilaabeen shicaar waxay ka dhigtaan ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru su'aasha taagan marka waxay tahay maxay tawxiidka uga bilaabeen iyadoo maanta caalamka dhibab kale ay ka jiraan aan maartaan arkayno waxaa kaloo isweydiin mudan waaqicii maxaa iska bedelay markay sadciga iyo dacwadaas ay ku dhawaaqeen waaqic maxaa iska bedelay ma ku guuleysteen dacwadoodii ay soo bandhigeen dadkuse ma ajiibeen haddaba waxaa kaloo isweydiin mudan 7 sano kadib maxaa xiga oo jamaacada la gudboon sidayse u arkaan mustaqbalka dacwadooda insha Allah su'aalahaas iyo kuwa kale oo fara badan waxaan uga bagan doonaa barnaamijkeenan aan ugu magac darnay dacwatu saadicuuna bil haqq oo socon doona oo taxana ah insha Allah bishaan Ramadaan oo dhan haduu Ilaahay yiraahdo aad ay u mahadsantihiin حلقة هلكا سيان كسو غوغوينينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد من جديد أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد